iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolkan Awdal mudane Saleebaan Xasan Xadi ayaa maanta waxa uu ka warbixiyay howlgal ay wasaaraddiisa ka sameysay deegaana hoostaga degmada Baki ee gobolkan Awdal waxa uu sheegay inay halkaasi ku soo qabteen dad ka ganacsanaya dhoofinta ugaadha kala duwan. Saleebaan Xasan Xadi waxa uu ka warbixiyay ugaadha ay soo qabteen iyo sida ay ka yeelayaan dadkii ka ganacsanaya ugaadhaasi. waxa imika saldhigga dhexe degmada Boorama ku xiran gawaari la kursala oo ay saaran yihiin gaariga halka la kursala oo soo qaadayo yahay konton oo diina waa diinkii dhulkeena ku noolaa meel loo wada garanaysi runtii dad Soomaaliland kuma qornay waxa jiray inuu faasitin garanayaan shilin marka la soo waxa weeyaan way ka hawlgalayaan laakiin cidda hawshan influencer ku ah waa dadka ajaanibka ee dibadda laga imanaya taasoo amaaninayay dad ajaaniba oo si sharci darro soo galay gobolka gaar ahaan degmada Roobhaya aanu ciidanka nabadgelyada degmada Roobhaya ka gacan galay inuu ka hawlgalay qoyska baadinayaan ku dib joogay aanu jabay inuu booliska socdo booliskaas oo runtii aanu marka dambe aan yaabnay iyadoo oo laantii dowladda wasaaradii wax ku shaqo lahayd aan la soo wargelin maamulka degmada halkaan la soo wargelin markii aan soo qabanayna si degdeg loo sii daayay oo aniga iyo maayirkii degmada Roobhaya ay layaan ugu noqotay in markii degdeg loo sii daayay. sidoo kale taliyaha qaybta booliska ee gobolkan Awdal ayaa isna waxa uu ka warbixiyay howlgal ay ciidamadiisa ku soo qabqabteen ugaadhaasi laga dhoofinayay deegaana hoostaga degmada Baki ee gobolkan Awdal waxa uuna hoosta ka xariiqay inay sharciga la beegsan doonaan dadkii lagu soo qabqabtay dhoofinta ugaadhaasi. waxaan doonayaa inaan fariin u diro dadka waxa ka shaqeeya inay faraha kala baxaan oo ay ka waantoogaan oo ay faraha ka qaadaan waayo xaraan weeyaan lama ogola sharci uma ogola waa xawii khayraadkii dadka ka dhaxeeyay marka qofna si gaar ah kaliya uma isticmaali karo deedii kale lagu qabsan sida kuwan kale uma sharciga la horgoyn doonaa. gudoomiyaha degmada Lughaya ee gobolkan Awdal Saleebaan Cabdi Cabdilaahi ayaa isna waxa uu ka waramay sida ay ula dagaalamaan dadka ugaadha kala duwan sida sharci darrada ah ugu dhoofinaya xeebaha hoostaga degmadaasi Lughaya ee gobolkan Awdal. waxaan u faraynaa in arrimaha ugaarsiga ee ka jira dalka intiisa badan in ay xil iska saaro shaqooyinka cidii leh faraha loo qaado laguna hawlgeliyo.